dawladyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya shir ay ka maqan yihiin saddex maamul oo Muqdisho ugu furmay guddigii Baydhabo ee war ka soo baxay Puntland halkee ay marayaan dadaalada la isugu soo dhaweynayo qoorqoor iyo Siciid Dani Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo raaligelin ka bixiyay qoraalkii la xiriiriyay qabriga Maxamed Siyaad Barre iyo sidoo kale waxa aad maqli doontaan taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka oo xirada Harqabow ay ku booqday dufcadii koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya ee Carbis sida ay ogaatay warbaahinta qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada ee wada tashiga doorashooyinka ee heer wasiir ee heshiiska ku soo gaaray Baydhabo ayaa maanta shir ugu furmay hotelka Deekaal garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho waxaa shirka ka qayb galay xubno ka socda maamul goboleedyada dowladda taabacsan ee Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxaa ka maqan Galmudug Jubbaland iyo sidoo kale Puntland hase yeeshee xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u sheegay in Puntland ay qayb ka tahay si kastaba wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad oo ka mid ah xubnihii Puntland ku matalayay guddigii farsamada heshiiskii Baydhabo ayaa beeniyay in Puntland qayb ay ka tahay shirkaasi wasiir Dhaban Cad ayaa sheegay in warka dowladda aysan waxba ka jirin isla markaana uusan jirin shir ugu furmay Muqdisho magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda iyadoo ay sidoo kale ay ku sugan yihiin madaxda maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle wararka qaar ayaa sheegaya in haatan ay bilowdeen dadaalada lagu doonayo in la isugu soo dhaweeyo madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo uu khilaaf soo kala dhaxgalay kadib khudbadii Siciid Dani uu ka jeediyay magaalada Garowe dadaalada socda ayaa waxaa garwadeen ka ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe siyaasiyiin iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug sidoo kale wararka qaar ayaa intaas ku daraya in Muqdisho kulan ay ku yeelan doonaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale qoorqoor iyadoo ay ka wada hadli doonaan kulanka ay yeelanayaan Siciid Dani isku keenidana uu aad ugu shaqeynayo madaxweyne Axmed Madoobe ilo ku dhow kulamadaasi ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in wada hadallada la isugu soo dhaweynayo labada dhinac ay marayaan meel wanaagsan isla markaana rajada ay tahay in xal waaro laga gaaro madmadowga siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Muqdisho haatan laga dareemayo u diyaar garowga shirka ku aadan wada tashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada loogana hadlayo doorashooyinka dalka dhanka kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka ayaa raaligelin ka bixiyay hadal uu dhawaan ugu jawaabay wasiirka gargaarka ee maareynta musiibooyinka Khadiija Maxamed Diiriye oo ahayd booqashadii qabriga Maxamed Siyaad Barre waa sida kali ah aad ku raaligelin karto madaxweyne Farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday waa tan aan diidi doono marnaba aan yeeli doonin ayuu yiri dhawaan kadib markii uu faale ka bixiyay wasiir Khadiija oo booqatay qabriga Siyaad Barre Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu horeyntii sheegay in ujeedkiisu uusan ahayn in uu diido duceynta qof dhintay booqasho qabri ama uu beel Soomaaliyeed wax u dhimo balse uu ugu dan lahaa ifinta waxa uu ku sheegay in aan xukun lagu raadin raaligelin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayuu yiri hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaan raaligelinayaa intii uu faantay in aan duco iyo siyaaro u diidanahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ama u qaadatay inaan Khadiijo ama qabiil gooni ah aan duulaan ku ahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa arintan waxay noqotay arin looga hadalhayo baraha bulshada iyadoo siyaabooyin kala duwan loo fasirtay Cabdiraxmaan ayaa muddo kadib waxa uu noqday mid ka falceliya raaligelin ka bixiya falkii dhacay ugu dambeyn haddaan eegno taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xirada tababarka Harqabow ku booqday dufcadii koowaad ee Carbis militariga Soomaaliya halkaas oo ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay in taliyaha wax walba oo qalab loo dhameystiri doono dowladda federaalka Soomaaliya mar walbana ay garab taagan tahay taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaybta taliyaha uu ka yahay booqasho iyo sidoo kale ka warqab uu sameyn doono mar walba xirada Harqabow ayaa ah xeero inta badan ay al-shabaab wayihii dambe ay ku hareereysnaayeen iyadoo dowladda ay sheegtay in wayahan xaaladda halkaasi ay tahay mid degan dowladana gacanta ay ku hayso iyadoo xeradani marar badan ay booqdeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya maantana uu booqday taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga inta